saraakiil ka socota wasaaradda cadaaladda ee Somaliland ayaa gaaray gobolka Gabiley sida warkaasi noogu soo diray wariyaheena Muuse Xuseen Xasan. wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland isla markaana ay ka mid yihiin safiirka dalka Somaliland u fadhiya dalka Sweden ayaa soo gaaray gobolka Gabiley isla markaana kulan la qaatay maamulka gobolka iyo saraakiisha wasaaradda cadaaladda ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta jeelka weyn ee degmada Gabiley. markii kulankaasi soo idlaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay maayirka degmada Gabiley iyo barasaabka gobolka. runtii maanta halkan waxaanu si sharaf iyo qiimo leh ugu soo dhaweynaynaa wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda oo uu runtii garwadan ka yahay ambassador Sakariye safiirka dalka Sweden ee Somaliland. wafdigaas oo ka socda saan sheegay wasaaradda cadaaladda ee dalka Sweden gaar ahaan qaybta xabsiyada oo runtii u yimiday inay indheeyaan xabsiga Gabiley oo ay ku hurgalaan xaaladiisa iyagoo daba socday program ay Sakariye hore u bilaabeen oo muddo 3 sanadood soo socday oo khuseeyo sidii saldhigga ama xabsiga Gabiley wax looga qaban lahaa iyadoo xabsiga Gabiley saa ka warqabtaan uu yahay xabsiga qura ee Somaliland lagu xidho dumarka. runtii xabsigaasi oo shaqo badan iyo culays badan uu saaran yahay ay xaaladiisu ku hurgalayeen. marka waa soo dhaweynaa programka muddada dheer soo socdayna insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu miro dhalo. waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada Gabiley ku soo dhawaada. waxaan filaynaa insha Allah taala wixii aad indhihiina ku soo aragteen inaad insha Allah Somaliland iyo dawladda baad wax kula qaban doontaan. oo runtii xabsigaasi uu yahay xabsiga kaliya ee ay ku jiraan dumarka ama haweenka Somaliland iyo qaybo kale oo kamid ah ragga oo iyaguna ku jiro. xabsigaasi runtii muddo badan buu dhisnaa, culays badanna horteed wuu jiraa oo dhinaca caasimadii uu uga dhow yahay, dhinacna waa xabsi runtii xuduud badan la leh wadanka Ethiopia oo runtii mushkiladaha iyo dambiyada ka dhaca xuduuduna ay qayb ka yihiin dambiyada ka dhaca wadamada gudahooda oo dad badan marka ay had iyo goor ay ku xidhnaadaan. marka mudane wasiir waftiga ka socday wadanka Sweden ee qaybta wasaaradda cadaaladda xabsiyada iyo runtii wakiilka Somaliland u fadhiya Sakariye iyo Muuse oo runtii iyaguna muddo 3 sano gudahood hawsha waday si adeega iyo facility-ga ka jira xabsiga sare loogu qaado oo runtii intaaba xoga badan iyo hawlo badan iyo tilmaamo badan ma garanaysa ka waday inay helaan xogahaana u gudbiyeen wadanka Sweden. runtii maantana laga dareen celiyay in loo yimaado wafdigan qiimaha lena loo yimaadaan si ay indhahooda ugu soo arkaan. marka mudane wasiir waxa farxad gaar ah noo ah inaad adiguna maanta Janiska aad adiguna maanta hormood ka tahay adiga iyo wafdigan ballaaran ee hogaaminayso. marka waxaan aad iyo aad u ogaadinaynaa in wax miro dhal ah oo xabsigan wax ka bedela runtii baahiyaha yaalana si loo helo runtii aynu labada gacmoodba la isqabsan doono oo runtii dawladda Sweden iyo wasaaradda cadaaladda iyo wakiilka Somalilandba ay qayb libaax ka qaadan doonaan si xabsigan u noqon lahaa xabsi standard ah oo la mid ah xabsiyada caalamka. waxaan rajaynaynaa inuu xabsiyada Sweden oo kale uu xabsigeena noqdo iyo xabsiyada Somalilandba. marka aad iyo aad baan u bogaadinaynaa wasiir. waxaanu leenahay ku soo dhawaada gobolka Gabiley. haddaanu anagu maamulka gobolka iyo degmadaba waxaanu ballan qaadaynaa in aanu mar walba la shaqeyno adeegyada ka jira gobolka haddii ay noqon lahayd xabsiyada iyo haddii ay noqon lahayd facility kale ee loo qabanayo bulshada. inta kadib waxa halkaasi ka hadlay safiirka Somaliland u qaabilsan dalka Sweden. runtii maanta aniga farxad gaar ah ay tahay ka wakiil ahaan waxaan ku faraxsanahay in xukuumaddii dalkii ugu metelay qarankan ay naga aqbasho inayna la soo aragto xaaladda ka jirta dalkeenan. runtii hawshan sida la sheegay dhowr sano ku soo jiray sababta anaga ahaan aniga iyo kooxdayda amba teamkayga aan u danaynaa waa xabsiga kaliya ee Somaliland ka jira ee haweenka ah taasoo 3 sano ka hor soo booqday
qof kasta oo Somaliland ah iyo qof kasta oo bini'aadanina uu ka damqanayay xaaladda ay ku jireen maanta waxa weeyaan waxaan u mahadnaqayaa dawladda Sweden gaar ahaan Gustav Osa iyo Corin inta dhamaantood maanta halkan indhahooda ku soo aragtay taasoo aaminsanahay inay fariintaasi qaadi doonaan waxaana noo qorshaysan marka wafdigan ay dib ugu noqdaan dalkii iyagoo sii mari doona Nairobi iyo Kenya warbixinta gudbin doona annaguna aan ka daba tegi doono inaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta xabsigan geyno qorshuhuna noo yahay kanoo kaliya maahe waa inaanu gobolada barigana sidaasoo kale ugu samayno way dadka ku jira xabsiga waxay u badan yihiin dad ka yimi berbera iyo wixii ka shisheeya We will continue the discussion with our colleagues in the diplomatic mission and with the funders back in Sweden to see what possibilities we have to start a project here in Gable. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland kulli anigu intii aan hadda joogay xafiiska waxa weeyaan wafdiga ugu horeeyay dalka Sweden inooga yimi halka igu yimi waa jira maartay wafdiyo kale sida safiir ku-xigeenka dalka Holland oo isaguna xafiiska igu yimi iyo dad kale oo ina soo booqday laakiin dawladda Sweden wafdiga ugu horeeyay halkaan la kulmo waa laga yaabaa waddankeena hore u iman jireen weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shalay markii aan kulanana muddo 2 saacadood ayaan wada hadlaynay annagoo u sheegay oo sharxayna baahiyaheena iyo siday u kala muhiimsan yihiin iyo meelaha aan danayno inay wax ka qabtaan iyaguna noo sharxaya iyaga laftoodu maartay meelaha ay aad u danaynayaan inay xilligan wax ka qabtaan wasaaradahaana annagu markaas heegan baanu nahay dadaal baan ugu jiraa sidii aan u kordhin lahayn wax qabadka wasaaradda baahiyo badan oo noo yaala awgoodna aanu intii karaanka iyaga ahayd wax uga qaban kari lahayn oo wax uga qaban lahayn annagoo mid u eegayna mid kastana xaaladiisa darseena oo mid walba maartay si gaar ah u danaynayna qaybo badan ayaan doonaynaa maartay inaan wax ka qabanno jeelasha ayaa koow ah waayo sharciga ma filin karo haddii ayna magaranaysaa lahayn dhismayaashii jeelasha kuwa hore gaboobay oo raba in la bedelo kuwa burbursan oo la rabo in wax laga qabto kuwa aan lahayn standardka caalamka aan lahayn weeye marka inaynu samaysano jeelal aad u wanaagsan oo la jaan qaadaya standardka caalamka inaynu samaysano magaranaysaa maxkamado iyo magaranaysaa station booliisyo iyo meelo aynu dadkeena sharciga khilaafsan aynu markaa maartay ku qabano ku hakino gobolada bariga iyo gobolada galbeedkaba intaba waan danaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waa Muuse Xuseen Xasan TV-ga caalamiga Royal gobolka Gabiley.